soo dhawaada daawadayaal halka aad nagala socotaan waa warbaahinta JS Media goobta aad muuqaalka ku soo daawatay waa gobolka Togdheer magaaladii Burco suuqii weynaa ee ganacsiga dagaalkan gacanka hadalka dhagaxa la tuurayo iyo waliba xariga gaadhay waxa uu dhex maray maamooyinkii ka ganacsan jiray caanaha suuqa weyn iyo sidoo kale booliiskii degmada haddaba intaaba wax ka shisheeyay baa jira waxaynu ku ogaan doonaa barnaamijkan sidoo kale waxa jirtay kuwii dagaalkan la kulmay iyo kuwii la xidhay qaybo kamid oo la soo daayay dhamaantood waxay la wadaagaan social media-ha cabashadoodii arrimaha bal haddaba muuqaalkan ayaynu kusoo koobaynaa dhammaanteedba dhinaca commentiga aragtidina kusoo qora sidoo kale share gareeya barnaamijka like saara ugu horreyn waxa aynu daawanaynaa dagaalkan nooca وهجاج ولي هالكاد نقرأ سعوتها وورباهين تجيس ميديا لايك سارة موقعك دجال كان هو حرب صقيل ودجال يرويين مسهلنا لقى حالة طورية حتى بوليس لفتي كذا قارن لقى حبأ ديك سوي أن وحين السوق هذا لنا ما مضى قربضو كلاد وضو أنا بعرف اللي لها سلو كل ما موي كل كل جود وقرنا أنا وحير برعو بوليس كلفتي شنو إن المدودي ولا قرنا يدور ده وسوي شقية هذا بوليس كان أمر بالسوسي بوليس كوس كمية ماده أمر مسؤول بقى ولا يجلس سواق بتحط سواق أو قبض أرنتنا حاجة كتمي أنت أين جود جريدين عاي كتمي أنا بيدي شيء دونه بالحتى إلى الضوء الإسلامي هي السوداء وعبنا يهبنا هو يبه عاي ما هو يقول عليه ولا ما هو يقول الشيء أنا قد واحد يقول عيد شو قرد بدي محن هاي فير رباح نوع أول بدو يجلسه كعنتها ميدك تنا حاجة سيجر رجعنا دوي دلي مريانا ويقدر حصارين ويدلي مركانو حنو نقابي جودة يقصارين ويحرين حد السوداء waan ka soo cararay anigu markan nafaygu ma ba dhex gelin waan soo firdhaba markan dee la jiiray ayaan soo cararay waan ka soo cararay nafta la soo cararay caanahaagi me caanahaagi imika yarna leeyahay inna mubaarak bal ka waran arintiisa halkaadi kaga dhacay waliba jirdilka waxa iga dara waa wiicay waxaan ku waar hooyada caay ma hooyo ku dhalay uura ma hooyo ku dhasha waxaan ka codsanayaa nimanka askarta iyo dawladaba nimanka booliska marka ay wax u dhigayaan inay tarbiyada u sheegaan hortay marka hore horaameen oo qofka bilaadanka sida loo qabanayo hortay marka hore la baro oo hooyanimo lagu qabto waar siidayo waan ku dhaan cagahaygan ku soconaya hooyo ma carrayay siidayo hooyo wada ma ay siidayo waan soconaya saddex nin ayaa isugu kay tagay qabto gowda iga saaray garaacay hadda soo ma garan kolay jiiditaan fara badan mariyo la iga dhex saaray ها مري نبرهاي ودعي ولا قاوية إن محيط تكتب ولا يجسي waayahay weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta JS Media like saara muuqaalka dhinaca commentiga aragtidina ku soo qora marka hore horta dagaalkan dhacay ma sahlanaba sidiisaba bal haddaba halkay arrintu waa muddo taxana ugu horreyn shacabkani ama maamooyinkan waa kuwii caanaha ka ganacsan jiray bal haddaba goob gaara oo lagu cashuuro oo baabuurtu istaagto oo lagaga rogo caanaha ayaa jirtay goobta waxay noqotay goob ciriiriya sida ay cabashadu ku gudbiyeen goobta wajahadeeda ama halka laga galaa waa albaabka labada fardood halka kaaga muuqda baabuurtu saasay soo daba taagtaa marba dabeetana mid baa ka soo baxa muddooyin waxa lagu cashuuraya caanaha halka haddaba cabashada ay gudbiyeen waxay tahay meeshii baa ciriiri noqotay baabuurtii iyo weliba haddii keeriyoon xitaa la siyaha maraya ma marayo waxaana laga qaadaa cashuur waxaanu doonaynaa meel waasac oo aan ku ganacsano marka waxay u gudbiyeen agaasimihii goobtii uu yimi waxa ka bedeli maynagu macnaha si aanay ku qanacsanayn ayuu wax ugu jawaabay waxay yidhahdeen annaga cashuur baa nalaga qaadaa cashuurta iyadu dee meel aan ku ganacsano hanaloo amro hanaloo geysa haddii kale dowladda hoose horteeda barxaddaasaan ku rogayna waa balaadiyaddaa eega car iyo car bay arrintii gaadhay subaxan saakaay dagaal ku dhici doono ayaa la yiri gaariga soo gali maayay geerka beeshii gaariga ma iman karaba ma bar rogayna waa mudaharaad qarsoon moogta waxaanu geenaynaa barxadda dowladda hoose ayaan ku rogaynaa caana ama hala amraaman la iska day khilaafaadku waa u sii fogaaday haddaba mas'uuliyiintii agaasimihii ku shaqada lahaa booliiskan ayuu soo diray soo qabqabta islaamaha waxaan badabada ka riixaya
dagaal aan yarayn baa dabeetana meesha ka dhacay dhagax tuur adigu afartii jahaa iskaga darsantay dadkii meesha joogay dhagaxu waa isdhaafay qaar kamid ah waa la qabtay maamooyinkii oo kuwan hadlayay haddaba waxaynu oran karnaa booliiska horta marka hore ma qabashada iyo sida qofka loo qabanayo mise inaanu isagoo arrinta shaqo ku lahayn uu yahay qof amarna soo faray oo la yiraahdo hibil soo qabo booliisku marka hore horta amar buu ku yimaadaa mas'uul baa amra marka uu dawladda hoose u shaqeynayo kaasa cashuurtii diiday kaasa waxa sameeyay oo ma khuseeyaan arrimahani arrimo saldhig ee waxa weeye arrimaha cashuuraadka iyo macaamilooyinka gobolka xagga nadaafadda waxyaabaha dadka qofka la soo amraa uu booliisku soo qabtaa uu soo xiraa waxyaabaha qarsoon ee ayna xaqiiqada ka hayn marka aynu ka nimaadno sawirka halkan ay bixinayso ama muuqaalkan laga duubay waa arrimo cabasho keeni kara ilaa wasaaradda arrimaha gudaha sababtoo ay diktaatooriyad ma nihiin inagu tiisiyaad barre ma nihiin qofka marka uu wax lagu soo eedeeyo ayara isaga loo imanaya saldhigga laga raba ama dawladda hoose laga raba ama meeshii dee amarka ku qabay ninka askariga ha yimaada hayman waay laakiin sidii qof gacan ku dhiigla ama dambiile gacanta kula jira dambigii uu markaa sameynayay in qofka loo garba duubo ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo waa arrimo ka baxsan dastuurka taas halkaas kaga imanaynaa oo waxa weeye booliiska iyo bahashan kamaraduna way isku dhiban yihiinba booliiska iyo bahashan kamaradu way isku dhiban yihiin arrimahaasina waxa ay noqdeen kuwo imika soo fara badanaya halka marka aynu kaga nimaadno ninkan booliiska ayaa soo diray ee yiri soo qabqaba dadka marka hore waa mas'uuliyiintii dawladda hoose cashuurta ka qaadaysay waxa loo soo gudbiyay cabasho islaamaha laftigooduna ma dagaal yaray waxa weeye meeshii iyaga qudhud xaalad abuuray sameeyeen haddana mar walba mas'uulka dawladda hoose waxa xaq loogu leeyahay qof kasta oo cabasho u soo gudbiyo ganacsade ama urur ha noqdaan ama shakhsi ha noqdo ama nidaam ha noqdo kale cabashada in loo tixgeliyo sida ay ku suuragal noqon weyday xitaa in lagu qanciyo hadaan suuragal ahayn haddii raja ay qabaan waqtiga noocaas markay gaadho waan ku tala jirnaa inaan sida idin galo haddii intaaba ay ku qanci waayeen in mas'uuliyiinta ka sarreeyay ilaa baarlamaanku ka doodi karo waa shaqada ay u hayaan gobolka waa arrin weliba aan la dhayalsan karin tani imika waxa ay noqon kartaa arrin shacabkii booliiska ay isku direen sababtoo ah booliiska mas'uul baa soo diray markaste dadkani waa dadka ay ku joogaan meesha ee mushaharka ku qaataan ee lacagta ka urursadaan mushaharka iyo kuwa ay wax ku dabaraan shidaalka gaariga ay ku dhaqaaqayaan lacagtoodii haddii ay doonayaan inay meel wanaagsan ku degaan xaq bay u leeyihiin in haddii xitaa aanay suuro gelin la qanciyo oo si yaro hawl yar oo wanaagsan loo qanciyo xaq bay u leeyihiin intaasiba marka laga soo gudbo bahasho haddii ay car iyo car gaadho dagaal gaadho nin iyo gabadh waxay iska celinayaan dawladda hoose markay cashuurta doonayso cid bay u diidaa waa ma Soomaha marka dadku shacabka ay wax doonayaan iyo isbedel waa in loo tixgeliyaa xaq bay u leeyihiin sababtoo tahay waan arkayay kulli bariyahan cashuuraadka waa la dardar geliyay oo waxaan arkayay albaabada aniga maalin dhow horta been sheegi maayo wallahi kulli waana laga yaabaa inaan sarki doono nin baa iska kicay sabab allaale sabab ugu caay karnaa waxay sideen albaabo ay guriga ka soo saareen kabacdi si caadi ah loo hadlo dawladda hoose waa fuurin salaamay nin gudaha ku jiro soo buuxsamay oo ay maanta wareerayso soo leeyahay albaabada sida iyo si mala wax weydii ka duubay hooyaday iyo allaali wax afka ka wada kari wuu yiri waa soo noqdo maxaad igu caaydaban kulli waa laga yaabaa inuu daawadayaasha ku jiro nin dhalinyaro oo buuran buu ahaa magaciisa imka wan ilaa nin askari oo gaariga saarnaa ayaan kala dhex galay niman kale oo gaariga la socdaan xoolo inaad raalli ah anaga ku raalli gelin ninkan wuu caraysnaa reeraan isku booqnay isqabsanay anu horta saasan ku tigay ninka dawladda hoose markuu cashuurta ururinayay dib waa ka xoogaya albaabada la baxaya laakiin kuwii cashuurta sida caadiga u bixinayay maamulayay marka ay cabasho u keenaan waa inuu xitaa hadduu ka fursan waayo bulshada la wadaagaa oo yidhaahaa sidaa saasay isbedel baa la rabaa saasay ku suuro geli weyday waa in markuu ugu liito social mediaha warbaahinta la wadaagaa waa in ururka imika caanaho kale matal
waa in la yidhaahaa intiina dee ma garanaysaa ku metelaysa ama inta ugu sarraysa ee dee waaweyn soo kaxeeya qolka dowladda hoose qol fadhiisiya qolka cashuuraadka ama xafiiska agaasimuhu u geeyaa u yidhaahaa sidaasaynu isbeddelka doonaynaa meeshii meel kale ma hayno aan idiin rarno laakiin waxaan doonayaa inaan waqtigaa idin rarno in aan waxaa ku qanacsantiin idinka shaqayno laakiin hadday noqoto qofkii kaa hor yimaada soo xidh ninka booliskaago tanoo kale wax ka daran baa ka dhacaya waxay taasi luminaysaa kalsoonidii shacabka iyo dowladda u dhexaysa arrinta kama timaado arrintani booliska laakiin waxa weeye mas-uuliyiin baa gobolka ku leeyahay nidaamkan iyagaa ku shaqa leh waa arrin ka timi dhinaca mas-uuliyiinta dowladda hoose iminka waxaa yimi dhammaanba mas-uuliyiinta gobolka hadda waa laga yaabaa in wax laga qabto laakiin iminka waxqabadkeedu waa mid caadifad reebay arrintan laga ka dhacdayna waa colaad dowladda iyo shacabka kalsooni darro dhex iman karta isku soo duuduuboo mas-uul kaste ama heer gobol ha ahaado ama heer degma ha ahaadee wuxuu xaq u leeyahay shacabkan uu shidaalka uu gaadhiga ku wata ka gurto mushaharkiisa ka guro gobolka ku hagaajiyo waa inuu cabashadooda tixgeliyaa sida ay doonayaan haddii xitaa la waayana sida ay ku qanacsan yihiin u yaara hadal uu ku qancin karo waa ku odhan karaa hadduu afka sidaa u taago soo dhex marayaa waa kibraysaana waa idinku filanta dee looma baahno waxba hoos ugu daadegi mayno dhaqamo badan oo dee xagga mas-uuliyiinta ka yimaada way jiraan laakiin waxba hoos ugu daadegi mayno maamooyinkana waxaan leeyahay waxba yaan la caadifadaynayn booliiskan iyo waxan yaan la caadifadaynayn inamadoodii un weeyaanoo dowladda hoose jooga walba ways yaqaaneen waa kuwii cashuurta ka urura jiray kuwii walba u yima jiray kuwii nidaamkooda sixi jiray iyaguna waa maamooyinkoodii waxaa laga yaabaa qaar inay inamadooduba ku jiraan kuwan waxba yaan laga dhex baadhay cadow badan baynu leenahay oo meelo badan inaga soo eegaya laakiin waxa canaantaa iskale waa mas-uuliyiinta dowladda hoose agaasimaha ku shaqada leh warwayda salaamaya tan iyo kulanti dambe barnaamijka xigeenta ay isugu imanayno like tasaara subscribe dhaataanad hore noola joogin waa anigoo ah Ismaaciil Xirsi Cigaal iyo warbaahintii Chase Media